السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خيارتا شرفت له كسو دواذا جنالكينا barbaarinta wanaagsan. maanta mawduucana waxaan kaga hadli doonaa ilmaha markuu dhasho ilaa iyo sanad tarbiyeynta uu u baahan yahay iyo barbaarinta uu u baahan yahay. ilmaha marka uu soo dhasho ku jiro qolka dhalmada isla waqtigaas uu dhashay waa in lagu aadaamaa laguna aqimaa labada dhagood dhagta midig looga aadimaa dhagta kalena looga aqimaa. sidoo kale ilmaha waa in wax macaan afka loo mari carabka loo mar loogu tiraa. waana sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam. sunnada nabiga ayaana nooleynayna xigmad ayaana ku jirta arrintaas. marka waxaana la kaga baahan yahay ilmaha oo saddexaad ilmaha looga baahan yahay waxa weeye inaan magac u bixino. magacaan u bixinayna waa inuu ahaadaa magac qurxoon. magaca ilmaha loo bixinayo saameyn bay ku yeelanaysaa. haddii aad magac aad ilmaha u bixinaysid uu ahaa qof wanaagsan, magaca ilmahaas wax xun wuxuu ka raaci doonaa dabiici. hadday noqoto wax xun macnaheed saameyn buu ku yeelanayaa magacaas wanaagsan ee ilmaha loo bixiyay. haddaa ilmaha u bixisid magac xun, magacaas xun aad ilmaha u bixisay sidoo kale saameyn buu ku yeelanaysaa. haddaba waa inaan ilmaheena u bixinaa magacyo qurxoon. ilmaha markuu yar yahay uu jiifo uusan ahayn mid isrogrogayo waxaas aan gaarin aad daada adiga bilaha ugu horeysa uu ku jiro ilmuhu wuxuu u baahan yahay barbaarin. ilmaha wuxuu u baahan yahay in maskaxdiisa la kobciyo. ilmaha aadka u yar ee jiifa wuxuu wax ka arki karaa 8 ilaa 12 inji meel fogaan intaas leeg. marka waana fogaan aad u yar macnaheedu wax meel aad u dhow wax ka arki karaa, meel fog wax kama arki karo. haddaba hooyada waxaa looga baahan yahay ama qofka ilmahaas xanaaneynaya ee daryeelaya waxaa looga baahan yahay inuu ilmaha u soo dhawaado meel dhow uu ka arki karo, aad ugu soo wajigiisa ugu soo dhaweeyo. hooyada markay ilmaheeda naaska siinayso waa inay indhaha u haysaa. waa inaysan meel macnaheedu emotionkeeda aysan meelo kale aysan ku mashquulinin. waa inay maskaxdeeda ku soo jeedisaa oo maskaxdeeda iyo nafsadeeda u sheegta inay naas nuujin sameynayso ay ilmahaas kaliya aysan ka bixin. taasna qodobkaas ayadana wuxuu anfacayaa ilmahana wuu anfacayaa. hooyadana wuxuu ku anfacayaa kala korinta maskaxda. waxa loo sheegaa inay naas nuujin jirto maskaxda waxay ogaanaysaa inay naas nuujin jirto hormoonka waxaanti diyaarinaya inay uur qaato. macnaheedu lama soo sii deynayo. hooyada xaalad ay ku jirtaa naas nuujina halkaas ilmaheedii waxay faa'iido ka helaysaa. hooyada ilmihii bay u kala korsanaysaa. marka ilmihii waa in aad loogu soo dhawaadaa oo ilmaheedii hooyadu la hadashaa. ilmaha wuu yar yahay u sheekay la hadal hooyo la hadal muujina la hadlaysid wada wajiga u soo dhaweynaya u qosol. ilmaha laftirkiisa uu ku dhoola cadeynaya uu fahmaya. ilmaha yarka ilmaha wuxuu u baahan yahay inaad laabta gelisid, inaad u muujisid dareen jacayl. haba yaraadee ilmuhu da'diisu haba yaraatee ilmaha waa inaad laabta gelisaa oo aad laabta adigoo saa ugu haya aad dhabarkana saa aga salaaxdaa. taa ilmuhu wuxuu ka dareemayaa in haddii uu ishig ilmahaas wuxuu dareemayaa in la siinayo keer la siinayo la daryeelayo haddana la ilaalinayo. ilmahaaga markuu hadduu hadal bilaabo hadloo wax alaale wuxuu ilmahaaga dhaho ka daba dheh. hadalku ku yiraahday ka daba dheh wuna hadalka uu dhahay wax ugu sii dar weer horaha ugu sii dar yara wuxuu dhahay adoo ka daba dhahaya.
ilmahaaga waana la ciyaartaa. waxaa jirtay qaacido ah ilmahaaga 7 sano ee ugu horeysa la ciyaar. 7 sano ilmaha ugu horeysa la ciyaaraa markuu from the birth ilaa 7 years ka gaarayo ilmahaaga waana la ciyaartaa. sidoo kale ilmahaaga waa inaad u muujisaa jacayl, tixgelin. ilmahaaga waa inaad maalintaada waqti ka mid ah siisaa, aad u sheekaysaa, la hadashaa, la ciyaartaa, u muujisaa jacayl, u sheegtaa inaad jeceshahay. ilmaha da'da markuu gaaro 6 bilood wuxuu bilaabayaa inuu ilka u soo baxaya. inaad cuntada ku bilowdaa waa in ilmaha markaas ma ahan muhiimadu inuu cunto badan cuno, laakiin waa inuu barto dhadhanka. ilmaha xamaaranaya, xabadku ku soconaya, waa inaad siisaa eriyo ku socdo, macnihii ku xamaarto, ku gurguurto hadduu gurguuranayo. marka waa inaad ilmaha markaas aadan xanibin, aad xor ka dhigtaa. ilmaha xora meeshu macnihii wixii halis gelinaya aad ka fogeysid, si space fiican oo ku socdana waa inuu ilmaha aad u banaysaa oo aad siisaa. ilmaha markii uu gaaro da'da 9 bilood ilaa iyo sanad, ilmaha wuxuu bilaabayaa marka ilmuhu gurguurashadii socod ilmaha ku socda intaas, marka wuxuu bilaabayaa ilmihii inuu ashyaadii kala barbarto. 9 bilood ilmaha markuu ilaa 12 bilood ilmaha wuxuu inuu wax qaado. ilmaha markuu jiifay wuxuu sameynayay gacmihiisa, farahiisa calaacasha buu wax ku qabsanayay. hadday gacantiisu marka hore saas ugu hayay 3 bilood ilaa 4 bilood markuu soo gaaro wuxuu bilaabayaa inuu wax macnihii gacantiisa ka baxsan uu soo qabsado. markaan 9 bilood uu gaaro ilaa iyo 12 ilmaha wuxuu bilaabayaa inuu far iyo suul wax ku qabsado. far iyo suul buu wax saa ugu soo qabsanaya. marka ilmahaaga si uu u barto far iyo suulka wax ku qaadashadaas, ku qaadida far iyo suul wax in lagu qaado ilmahaaga si uu u barto, waxaa laga rabaa inaad ilmahaaga u soo dhaweysid wax far iyo suul. hadda wax weyn oo kaleeto ilmuhu far iyo suul kuma qaadi kara, isagana wuxuu rabaa inuu barto sidii far iyo suul wax loogu qaadi karo. far iyo suulka wax ku qaadida waa macnihii waa wax aad saameyn u leh ilmahana maskaxdiisa, inuu korniimadiisii qayb ka ah maskaxdiisa inay development sameyso. marka waa inaad ilmahaaga cunto yaryar soo gabal kasoo dhigtay oo aan isagana wax yeelaynin, sida baradho bisiloo jarjartay, kaarooto bisiloo jarjartay, ama wax yaroo markaas aad ishig adoo ka ilaalinaya macnihii inuu laqo ka ilaalinayo wax hadaad aan cunto ahayn. ilmahaaga barto wixii far iyo suul si loogu qaadi lahaa. ilmaha markaas wuxuu ka caawinaysaa arrintaas in maskaxdiisii korto oo uu barto arrinka. sidoo kale ilmaha markuu wuxuu bilaabayaa da'daas inta ku jirta inuu istaago, wuu istaagayaa muruqihiisa wuu istaagayaa muruqiisu tijaabinaya iyo awooddu ku dhaqaaqi lahaa. marka sidaan hore usoo sheegnay ilmaha waa inuu helaa space, alaab macnihii uu ku ciyaaro, wax uu riixo, wuxuu ilmaha ku jiraa baaritaan, waxbuu ogaanayaa, waxbuu baranayaa, maskaxdiisii baa koraysa. marka waxaa laga rabaa hooyada inaysan ilmaha dhig anaga haddaan Soomaali nahay arrintaas macnihii si baan xogaaga hooseynaa. ilmaha waan xanibnaa, alaabuu qaadayaa, waa laga qaadayaa. ilmihii alaabta markuu qaado u fiirsashay buu qaadayaa, qaanduu qaadayaa. ilmaha qaandadaas waa markii ugu horeysay uu arko, dhulku ku dhufanaya, wuxuu fiirinayaa dhawaaqa qaandadaas ay sameynayso. okay wuu ogaaday qaandada dhawaaqeeda,
وقدقدينيا وفيرينيا تسوفيرينيا ومسكحدا لو سيف غرينيا شيء كان ساوي سدا u dhawaaqo dhanka kale u gudinaya u dhadhaminaya test haas uu fahmaya bir macni shaygan dhadhankiisa kadib ilmahaas ma sii hay shay kale oo cusub hadaad u soo dhigtay qaandada wax ka baxsan oo kaleento ilmaha shay kale hadaa u soo dhigtay iyo qaandadii uu arkay hadaad u soo dhigtay ma aadan qaandadii shaygan cusub buu qaadanaya wuxuu ilmuhu sameynaya baaritaan wuxuu baaraya wuxuu ogaanaya ashyaadu kala barbaranaya hadaba waxa laga rabaa hooyada waxa laga rabaa inay sameyso ilmihii ay shaygan kala qaando waa in 3 jeer camal ugu celcelis ama ka badan qaando inay tahay u sheegtid shay buu qaadiyaa u sheegtid ma ahan ina ilmihii xadidid ina dhig hooyooyin waxa jira ilmaha la xiro brain damage weyn bay ilmaha u keensanaysaa maskaxda dhaawac weyn ku geynaysa xiritaanka waayo ilmihii wax korniimo maskaxda ku aadan ma sameynayo jirkaas inuu ku koro waa laga yaabaa cunta siinaysa balse wax korniimo maskaxda ku aadan ma sameynayo hooyo waxa laga rabaa inaad ilmahaaga xirin haddaan Soomaalinahay ma naqaan wuxuu dacigaas loogu badan yahay insha Allah waxaan rajaynaynaa maanta isbedel weyn baa horumar adduunka waxa la gaaray inuu hal magaalo yahay wax badan baan ogaanaynaa wax badan baan baaraynaa wax badan baan la kulmaynaa aad baan hadda waxaan dareemaynaa bulshada dhexdeeda inay soo yaraanayso arrintaas waana horumar wanaagsan talaabo wanaagsan aan horay u qaadnay marka insha Allah waxaan rajaynaynaa inaan ilmaheena aanan xirin ilmaheena inaan la sheekaysano ilmaheena inaan waqti siino ilmaha waqtigaas sanad daadaas ku jira maskaxdiisa ay korniimada sameynayso wuxuu rabaa wax inuu barto ma ahan inaad mobile intaan u daarno hada ilmaha sanadka jiro kale uu yaqaana mobilku uu ooynaya ilmaheena hadhowtadii maskaxdii ma korayso bombalahaas iyo waxaas iyo kartoomadaas buu daawanaya marka waxaan kaga baahan yahay ilmaheena in ilmaheena u sameeyno qol ama area markaas ku filan soo ku soconayo ashyaa kala duwan oo ku ciyaaro kuwa uu riixo kuwa uu ishagan ashyaa adiga kala duwan inaan u diyaarino qol u dhigno u barto insha Allah maanta halkaas ayay noo joogaysaa mawduuceena horay ayaan u sii socon doonaa insha Allah sidoo kale inta waxaan soo gelin doonaa kana soo hadli doonaa cuntooyinka ku habboon ilmaha markuu 6 bilood gaaro ilaa iyo wixii ka weyn ilaa iyo hadda intaan ka soo hadalnay 6 bilood ilaa iyo sanad mid ayaan naga soo hadlaynaa 6 bilood ilaa 9 bilood baan ka soo hadli doonaa 9 bilood ilaa iyo sanad waan ka hadli doonaa insha Allah waad ku mahadsantahay daawashada fiidiyowan inta fiidiyowga ku kulmi doona. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.